magacaygu waa Deeqa Nuur waxaan ahay gabar ku soo biirtay saxaafadda Goordhow waxaan saxaafadda ugu soo biiray inaan u adeego bulshada daawade ama dhageyste warbixintani waxaan ku eegi doonaa caqabadaha ay la kulmaan suxufiyiinta ku nool magaalada Tani Mandheera warbaahintu waa hay'ad madax bannaan oo u dhaxayso shacabka iyo dawladda waxaana ka howlgalo shakhsiyaad xirfadaysan balse Mandheera oo ah magaalo ka tirsan gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa warbaahintu laga aaminsan yahay mid u shaqeyso dawladda mise shacabka kaliya wariyaalka ka howlgalo waa fara ku tiris waxayna wajahaan marxalado kala duwan kuwaas oo adkayso tabinta wararka ka soo baxo magaalada Maxamuud Lafagiri waa wakiil wareed ka soo shaqeeyay magaalada Mandheera in ka badan 7 sano wuxuuna waayo arag u yahay caqabadaha ay la kulmaan wariyaasha wuxuuna iga sheekeeyay waxyaabaha uu la kulmay tani intii Mandheera ka shaqeynayay saxaafadda ninba wax uu ka aaminsan yahay deeqa tusaale markaan u soo qaato caqabadaha aan la kulanno tusaale kale bulshada way kala aragti duwan tahay waa kala qabaa'il waa kala fikrad waa kala siyaasad caqabadaha ugu badan oo kala kulmay muddada Mandheera ka shaqeynayay soo hore kugu sheegay kuwana waa personal oo in la qariyo waa shaqadanada ku jirto oo waajibna saaran kuwan bulshada la wadaagi karna hadaan soo bandhiga tusaale ahaan adigaan warka qaaday ama suuqan kugu yimid urur baad waxa u tahay chairman ama gudoomiyaad u tahay barnaamij markaas taagnaa oo ururka quseeyay baan dabcan ka waraysto markaan ka waraysto dabcan waa ka cudur daaratay waa diiday waxa tir kama hadli karo xagan ka wareegtay waxaan raadiyo ku xigeenkaadi ama xog hayntaadi ama xog hayahaadi ama secretary-gaas ay Soomaalidu taqaan kiiban ka hadashay Soomaalida inta badan markii organization ama urur uu dhisan yahay waxa way ku xigeenka waa qabiil gooni ah gudoomiyahana waa qabiil gooni ah Soomaalida inta badan qabiil bay ku dhisan tahay qofkii markii aad waraysato kii warbaahinta ka soo deysay idaacadda baad ka soo deysay ama TV-ga baad ka soo deysay qofkii maanta aad u tagtay oo tiri waraysigaas bixi aad ku quseeyay aad u tagtay oo ku diiday waa ordaya ku imaanay because hebel baa hadlay waxa weeye ana ka mudnaa ina hadlay ahayd khaladan galay hadda hadlaya war ma hadlayso ku fursadna ku siimaadan diidan hadda ninkan gudoomiye ku xigeenkaadii ama xog hayntaadii oo isku xafiistiin baa barnaamijka asaga ka hadlay waana baxay ka daba tag ma laha qofka asaga waxa weeye waa kula coloobaya shuruucda saxaafadana waxa weeye qof bini aadankan Mandheera joogo dhan lama raali gelin karo adiga waxa ku qasban tahay inaad dhaxdhaxaadnimadaada aad ku shaqeyso aad ku qasban tahay qofkan wuxuu rabaa asaga rabitaankiis isma keenaysa marka deeqa warfideenada ka howlgalo Mandheera waxay sidoo kale tacdiyad kala kulmaan dhanka dawladda kuwaas oo badanaa wariyaasha dhibaateeyo waqtiyada ay baahiyaan baahida shacabka waxay ahayd bartamaha sanadkan maray wariyaasha Mandheera albaabada laga laabtay waxayna tani u arkaan inay dawladda afka ka xirayso saxaafadda 5 sano ee ugu horeysay dawlad wadaajinta 2013 ilaa 17 ayay warbaahinta u fiicanayd dawladda countiga waagaasi oo fiicnaan dhan kale ma jirto waxa weeye wasiirada dawladda countiga oo shaqeeyo mar walba oo aad warbixin uga baahato si durba dhaqsi ay warbixinta noo siin jireen laakiin tan iyo 2017 ilaa haatan oo 2020 la joogo caqabado fara badan baan kala kulanaa dawladda countiga wasiir marka uu tagto dawladda countiga u shaqeeyo markii aad warbixin uga baahato sidii waagii hore oo aan naqaan ma aha hadda waxay ku wareejinayeen governor Mandheera ay asaga kali ayaa warbaahinta la hadli karo ayay ku dhahaan marka aad wasiirada la kulanto hal wasiir iyo laba wasiir maaha kulligood hadalka way isla qabaan waxaad moodaa in amarkaasi xafiiska governor laga soo siiyay marka warcelinta mar walba looga baahan yahay dawladda countiga iyo waliba xataa dawladda dhexe xafiisadeeda inta badan warcelin ma helno dhibaatada ugu weyn oo aan dawladda kala kulanno dawladda countiga iyo dawladda dhexeba waa inta hadda tusaale ahaan gudaha sanadkan 2020
caqabada ugu weyneyd oo aan kala kulanay dowladda countiga waxay ahayd mar shacabka kasoo jeedo deegaano hoos imaada Lifi ay cabasho kasoo jeediyeen raashin halkaasi dowladda countiga ay caawinaad ahaan dadka ay ugu qaybisay raashinkaasi oo markii aan cabashada dadweynaha soo duubnay oo aan u keenay dowladda u soo bandhignay intii ay warbixinta ka jawaabi lahaayeen way ka gaabsadeen warbixintii inay ka gaabsadeen waan xusnay sidii aan ku soo daaynay dhibaato fara badan baa ka dhalatay heer waxay gaartay xitaa noolo ogolaani waay ani xataa waa ku jiray wariyaasha inta badan loo diidi jiray tan iyo xilligii aan warkii ku saabsanaa raashinkaasi aan soo daaynay xataa noola diiday inaan xafiisyada dowladda countiga aan warbixino ka raadsano meelaha shirarka dowladda countiga ay meelaha ku yeeshaan in noola diido caqabadahaasi fara badan baan kala kulanay. halow dhegeysta magacaaga halkaad inaga soo wacaysid haddii aad u gudgasho qodobka dooda haddii aad la socotay barnaamijka. waa dhifiyo naadir in la arko gabar wariye oo tabiso wararka Mandheera waxayna badankood u badan yihiin kuwa aan soo dhaafin xarunta idaacadda sababtoo ah gabdhuhu waxay iyaguna caqabad kala kulmaan dhanka bulshada. Maryan Tawane waa tafatire ku-xigeenka Radio Sahan sidoo kalena soo saaray barnaamij waxay sharxaysaa waxyaabaha ay bulshada kala kulmaan. tayada haddii aan idin soo qabto gabar horeyntii horta ugu horeyn haweenkii marka aad dabcan jadwalka aad ku jirto timetable-ka lagu soo qoro aad leedahay barnaamij ama inaad war soo tibiso laga rabo bulshada ku dhageysanayso marka aad idaacada ka baxdo ama aad banaanka aado ama aad dibadda aad wax ka soo gadanayso waxa lagu leeyahay waqtigaas ilaa 4 saac maxaad idaacada ka dhex qabanaysay walow ay og yihiin ay ku dhageysanayaan dhanka kale markii aad war raasanayso ama aad reporter tahay ama wakiil wareed aad u tahay aad war raadiso ayaga adinka iyo wiilasha isku si leedama ixtiraamayo oo isku si bulshada kalama kulmaysaan isku waji oo adiga haddii aad u doonato waxay ku leeyihiin gabar baa tahay maxaad raadinaysaa maxaad saxaafad u baranaysaa maxaa shaqo aad ka helaysaa maxaa kaaga jiro. Mandheera waxaa kaliya ku sugan idaacadaha afkooda ku hadlo kuwaasoo mar walba garab siiyo bulshada balse kuwa maxalliga ah ee Kenyaanka kale daawadaan way ku yirhiin waxayna Mandheera soo gaaraan kaliya xilliyaday dhacdo falal amni darro ah mise masiibo qaran. tani waxay shacabka kale ee Kenyaanka mise dunida kale tustaa muuqaalka xun ee Mandheera. inta badan shacabka ku dhaqan dawladda ama shacabka hadan ma aamsano idaacadaha localka mise kuwa oo ka hawlgala ama kuwa ku hadla luqadda hooyo Soomaali ahaada mise booranka oo badan halkan Mandheera looga hadlo waxay aaminsan yihiin shacabka Mandheera idaacadda dadtire idaacadda Heblan ka shaqeeya waxay ku dhaayeen idaacadaha waaweynka dawladda ku maxalligan u baahanahay marka idaacadahaasna kama hawlgalaan badankooda Mandheera haddii ay ka hawlgalayaan waxay ka qaataan oo kaliya hadduu dhaca shil amni darro ama masiibo qaran mar ay haddii ay dhacdo ayay Mandheera soo gaaraan badankooda haddii macnaha weerar dhaca ay imaanayaan kadibna way laabanayaan laakiin wariyaasha Mandheera ka hawlgalo kuwa tacdiida ama dhibka maro waa kuwa warbixinada ka soo qaada ilaa guryaha ay ku galaan waxyaalo badan way sameeyeen suxufiyiinta Mandheera balse shacabka Mandheera si fiican uma arkaan badankooda marka taasna way jirtaa marka shacabka Mandheera waxaan ku boorin lahayn ama jeclaan lahayn in ay taageero buuxda ay siiyaan wariyaasha kula hadla afkooga hooyo oo la jooga magaalada tan ama deegaanadooda. Ankare ayaa qalimatay talaadadii sidii ay sheegeen kooxaha gurmadka degdega ah 4 qof ayaa ku dhimatay shilkaasi halka 28 la soo badbaadiyay. ma jirto wari la jir dilay mise xabsi la dhigay balse waxa intooda badan lagu weeraraa afka taasi oo mar walba niida ka disho saxaafiga diyaar u ah baahinta dhibaatooyinka ay la kulmaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxayna mar walba u baahan yihiin taageerada shacabka. Deeq Nuur Cabdiraxmaan Radio Sahan FM Mandheera.